بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، درسكينا كوبا waxaynu ku soo qaadan doonaa axkaam kooban oo ku saabsan zakada loo yaqaan zakatul fidriga. waxa kale oo la yiraahdaa zakatul badan, waa la yiraahdaa zakadan zakatul badan ka ama zakatul fidrigu waa sadaqa rabbi subhanahu wa ta'ala inuu waajibiyay. sadaqatun tajibu bil fidri fi ramadan, waa sadaqa ku waajibaysa ama waa zaka ku waajibaysa ruuxu markuu ramadaan dhamaysto ee habeenka ciida uu soo gaaro ayay ku waajibaysaa. waana runtii maadaama cibaado aad u qiimo badan la soo dhameeyay oo cibaado aad u qiimo badan aynu soo qaadanay, waxay cibaadadaasi nooga baahan tahay mahad celin. marka waxay ka dhigan tahay mahad celin bay ka dhigan tahay cibaadada wanaagsan ee rabbi subhanahu wa ta'ala inoo soo waafajiyay aanu ka mahad celinayno. zakada loo yaqaan zakatu fidriga waa waajib rabbi subhanahu wa ta'ala ina saaray, sida uu tilmaamay ibn Umar radiyallahu anhu. waxa uu leeyahay farada rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam zakata al-fidri, wuxuu nabigu alayhi salatu wa salaam umada ku waajibiyay zakada loo yaqaan zakatu al-fidriga. markaan xukunkeeda eegno, zakadaasi waajib weeye ina saaran oo rabbi subhanahu wa ta'ala inagu waajibiyay. xikmadda zakadan loo jideeyay waa laba arimood, sida uu tilmaamay ibn Abbas radiyallahu anhu. waxa uu leeyahay farada rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam zakata al-fidri dhuhratan lis-saa'imi min al-lagwi wal-rafath wa du'matan lil-masaakin. nabigu alayhi salatu wa salaam zakadan ayuu umada uu ku waajibiyay. waxaana laga lahaa ujeedada laga lahaa laba arimood weey. ta horeysa waxa weeyaan waa dhuhratan lis-saa'im, ruuxa sooman ayaa waxyaabihii ka dhacay ee hadalada xun ahaa ee dambiyadii ka dhacay kala duwanaa ee afxumada ay ugu horeysay ayuu rabbi subhanahu wa ta'ala uu ka daahirinaya ama uu ka nadiifinaya. xikmadda labaad loo jideeyay waxa weey waa du'matan lil-masaakin, dadka baahan ee masaakiinta ayuu rabbi subhanahu wa ta'ala uu ku quudinaya oo loogu talagalay dadkaas in lagu quudiyo, oo waa kaalmayn la kaalmaynaya dadka tabaalaysan ee baahan ee masaakiinta ee muslimiinta la isku kaashanayo maalinka ciida farxadeeda in laga wada qayb qaato. marka taana waa loo jideeyay. labada xikmadood ee waaweyn ayaa cibaadada loo jideeyay. zakadani waxay waajibaysaa laba arimood marka la helo ay ruuxa ay ku waajibaysaa. ka horeeya waxa weey ruuxu inuu ramadaan soo gaaro, ka labaadna waxa weey habeenka ciida inuu soo gaaro. duu ramadaan uu soo gaaray habeenka ciidana uu soo gaaray oo maalinka ramadaan u dambeeyay habeenka maalinta ramadaan u dambaysa cadceedu ay u dhacdo sida habeenka ciida uu ku soo gaaro, zakadaasi way ku waajibaysaa. daba ruux hadduu ramadaan uu soo gaaraan habeenka ciida soo gaarin oo ramadaan dhexdeeda uu geeriyo zakada lagu male. haddii adduunyada uu ku soo biiro habeenka ciida waanu ramadaantii soo gaarina zakada lagu yeelan maayo. labada arimood ay saaran marka la helo ay ruuxa zakadu ay ku waajibaysaa. zakada loo yaqaan zakatul fidri. zakada goorma la bixinaya? Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ayaa inoo tilmaamaya, wuxuu leeyahay farada rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam sadaqatul fidri min ramadan. wuxuu nabigu alayhi salatu wa salaam umada ku waajibiyay zakada loo yaqaan zakatul fidriga. waxa markaa uu tilmaamay wa kaanu yu'duuna qabla al-fidri bi yawmin aw yawmayn, waxay saxaabadu si qadimi jireen ay zakadaasi bixin jireen maalinka ciida, maalinka ka horeeya ama labada maalmood ka sii horeeya ay si qadimi jireen. marka waxaanu ka arkaynaa maalinka ciida maalinka ka sii horeeya ama labada maalmood ka horeeya in la sii qadimi karayo. culimada Shaafiiciina waxay tilmaameen bisha oo dhan baaba la qadimi karayaa oo la sii bixin karayaa. bisha Ramadaan hadii la galaba zakada waa la sii qadimi karayaa waa la bixin karayaa. laakiin waxa ugu fiican zakada bixinteeda waxa ugu wanaagsan marka salaada subax la soo tukado, tan salaada ciida la galin inta u dhaxaysa in la bixiyo, waqtigaas ugu fiican oo ugu wanaagsan. mana banaana salaada ciida kadib in dib loogu dhigo, oo waxa waajib ah salaada ciida inta la galin ka hor in la bixiyo. waxaana markaas sunnah salaada ciida ciidul fidriga in dib loo dhigo oo aan hore loo soo qadimo ayaa sunnah, si dadku ay wada bixiyaan zakatul fidrigooda. marka in dib loogu dhigaa ma banaana. haddii ay dhacdo in salaadii ciida iyadoo aan la galin ruuxi aanu zakada iyadoo salaadii ciida la galay zakadii uu doonay inuu bixiyo waa bixinaya oo soo qalaynaya, laakiin xaraam ku dhacay ruuxaasi. zakadaasi ku waajibaysa
zakadu waxay ku waajibaysaa ruux kasta oo muslima sida uu tilmaamay Umar radiyallahu anhu wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam sadaqada ku waajibiyay cala al-abdi wal-hurri wad-dakari wal-untha was-saghiri wal-kabiri min al-muslimin waxa nabigu calayhi salaatu wasalaam sadaqada ku waajibiyay oo uu saaray ruux kasta oo muslim ah hadduu adoon yahay hadduu xor yahay hadduu lab yahay hadduu dardig yahay hadduu yar yahay hadduu weyn yahay waa yeeliyay macnaa iyo saqiirba waa lagu waajibiyay qof kasta waa laga rabaa sadaqadaas waxaana bixinaya mas'uulka reerka ayaa bixinaya oo ruuxu wuxuu ka bixinaya naftiisa iyo cid kasta oo isagu biilo hoos timaada ayuu sadaqada uu ka bixinaya zakada loo yaqaan zakaatul fidriga qadarka la bixinaya waxa weeye waa saacan min tamrin aw min shaciirin ama saacan min quutil ghalib waxa la bixinaya saa nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadu ay ka soo guuriyeen xilligiisii in la bixin jiray saac waxa la bixinaya saacaasa la bixinaya saacaasi waxa uu noqonayaa waa ilaa 2 kiilo iyo bar ama 3 kiilo ku dhawaad meelahaas uu noqonaya ilaa 2 kiilo ayuu ruux bixinaya bar ayuu bixinaya 2 kiilo iyo barkaana wuxuu ka dhigayaa magaalada uu joogo raashinka ugu badan dadku ay isticmaalaan raashinkaas uu bixinaya oo dadka masaakiinta halka uu jooga uu siinaya waxa waliba fiican oo wanaagsan dadka masaakiinta ee raashinka la siinayo in raashinkaas qaraxa la siinine xogaa iidaanana loo raaciyo oo xogaa qarasha lacag uu ku soo iidaanto soo siista muxuu ahaa khudaartii uu ku dari lahaa ama uu ku iidaaman lahaa in loogu daraana way fiican tahay way wanaagsan tahay laakiin waajibka saaran ruuxu waa inuu saaca uu bixiyo 2 kiilo iyo barka noqonaya raashinka magaalada uu joogo ugu badan laga isticmaalana uu ku bixiyo waxaana la siinayaa saaynu tilmaanay dadka masaakiinta ee baahan baa la siinaya sadaqadu ay ku baxaysaa wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu.